السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وشبال ميديا وأنا إذن سلامنا ميل كستاد كيسو انتين تافاها الدنيا ومعلن مجمعها بشا لبعض شنتيدي لبعض كوبي لبعضك وحنا لكن إذن كسو بنينا فنان كدا يرى فرحان يرى إيو فنان دا يرى الراس من رئيس أولو يقاني boodhariga nool iyo hodanta nool jacaylka dartii halka ay ka gaareen ayaa waxaa muddooyinkan dambe ku kala jiray sida loo wada ogyahay khilaafkaasoo qarka ay u gaaray inay kala tagaan walow ayan kala tegin hase ahaatee waxaa nasiib darro ahayd in ay fanaaniinta qaarkood ay kusii shidayeen dabka waxaase nasiib u yeeshay oo magac weyn ku yeeshay awalba isagoo ah nin sharaf iyo karaamo leh Soomaalida dhexdeedana magac weyn ku leh fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac oo ku guuleystay in uu isu soo celiyo labadaasi fanaan markii uu kala dabqaaday isagoo dadaal badan iyo juhdi geliyay sidii uu mar u mideyn lahaa ama uu isugu soo celin lahaa nolosha qoyskan lamaanahan aadka isu jeclaa oo sida la wada ogyahay khilaafkooda heerka ugu sarreeyay uu gaaray nimcaan hilaac oo aynu awalba ku naqaano inuu yahay fanaan da'yar ah fanaaniinta ugu afka gaaban amaba ugu asturan fanaaniinta Soomaalida marka loo eego xagga dhaqanka iyo xagga asluubtaba waxa uu ahaa fanaanka kaliya ee dadku kaga tilmaamay inuu yahay fanaan aad iyo aad afkiisa iyo adinkiisa uga adag nimcaan hilaac oo awalba lagu yaqaanay inuu yahay nin aan fanaaniinta kale la mid ahayn kagana duwan isagoo ah fanaan afgaaban dadkana aan idab dareen amaba aan la mid ahayn fanaaniinta qaar oo social media inta dadka ka aflagaadeynay amaba ay isku qabqabsadaan haddaba nimcaan hilaac ayaa waxa uu ku guuleystay amaba kaalin dahaba ka galay amaba uu ku dadaalay sidii uu isugu soo celin lahaa labadaasi qoys waana uu ku guuleystay ilaahayna waa uu ku garab galay waxaana uu ku yeeshay magac kaasoo maanta nimcaan hilaac awalba isagoo sharaf iyo karaamo loo hayay maanta ka dhigaysa nimcaan hilaac inuu yahay fanaanka kaliya ee da'da yar ee ku hamiyaya in uu xataa kala dhexgalo fanaaniin isqabtay oo furiin qarka u saaraa inuu dhexda u xirto sidii uu u soo midayo haddaba waxaan oran karnaa fanaaniinta kale ee la midka ah inay ku daydaan nimcaan hilaac oo ay wadadii uu maray ay maraan hase ahaatee fanaaniinta intooda badan ayaa waxaa looga bartay inay markay lamaane fanaaniinta ahi ama lamaane kale ay qabtaan in ay qaarkood ka faa'iideystaan amaba ayba mudaan in jaanis halkaas ka banaanaaday iyadoo markiiba ay fanaaniinta kala tagay la kala dafayo oo midba midka kale loo kala goynayo sidii ku dhacday ninkii ahaa Mursal Muuse iyo fanaanadiisii hore